والله dhibaatada ugu weyneed intaan baraka hadda aan ku jirno waxaan ugu darneed biyo baxad hadda u dambeysay saameynteedii oo habeenkii la jiifanin silax lagu baxay ilmaha waxa lagu bixinaa sax ka koraa lagu bixi subaxi 12 salaado lagu jiraa inta ka baxnay marka qofkii kartile la ilmihiisa baxsanay qofkii kalena waabo in loo soo noqdo gacan la siiyay oo banaanka la geeyo والله horta intuu horeyso dhan intaas dhulka qoynaa biyo ma bahaysanin biyihii daadadkii oo biyo baxooyinka godadka ku jiri aan cabayni waayo shaqana lama haasto fooska wareersanay dhiiqan ku soo dhaxdaadsanay oo shaqo hore kama helay sidoo biyo saxan saxee ma gadan kartid qataraha caafimaad waxa naaga dhashay oo ka dhalan kara suban imanta oo ilmaha ku dhacay iyo annaka dadka weeweynka ebo jadeeco kaniico iyo cayayaan kale oo dhulka socdo daa sariir laga fuulay ama ilmaha sinyeeriyaal laga deynin dhagaha ka galay baxadii dhibaatadii la imaanaa wili haysaa wili naga herin arad waa jira guul darro waa jirta cunno darro waa jirta biyaha xagooda iska culus waa jirta marka dhibaatooyin tir badan waa jirta rajada aan leenahay waxa in Ilaahay noo soo adeego wax qaar qabas Ilaahay noo keeno waxa cunno iyo waxa xiran iyo biyo intii ka dhaxla wixii noo yimaado alxamdulillah waa rabnaa